laba maalin aan qol ku jir haddana soo baxay alxamdulillah adiga qorsheydile qararka marso dhadhami wixii kula qurux badnaa in badan soo qomame guud ahaan baraha bulshada oo ay Soomaalidu ku wada xiriirto sida TikTok, Instagram iyo Facebook waxaa qabsaday sawirada iyo muuqaalada kuwaas oo lagu sheegayo in ay kala tageen lamaanihii soo bandhigi jiray muuqaalada jacaylku ku dheehan yahay ee Liicaata iyo Sumayo. Arrintan ayaa dad fara badan oo nagu xiran soo weydiiyeen, hase yeeshee muuqaalkan waxaan u diyaarinay in aan idinkaga jawaabno maxaa ka jira arrintaasi, run miyaa mise waa been. Xogahaas iyo kuwa kale oo ku aadan ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa, kuwaas oo xambaarsan muuqaalo sir ah oo nala soo wadaagay. Hase yeeshee daawade, inta aanan kula wadaagin fadlan muuqaalka leegaray, maxaa yeelay leegtu waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar iyo inaynu maalin walba idin soo bandhigno muuqaalo cusub. Sidoo kale nagu soo biir oo channelkeena subscribe dhaho. Liicaato waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah kaas oo ka soo shaac baxay YouTube-ka. Si weyn ayuu maalmo kooban gudaheeda u qabsaday guud ahaan baraha bulshada, iyadoo ay dad fara badan habjiliinkiisa jeclaysteen. Waxa baraha bulshada lagu arki jiray gabdho Soomaaliyeed kuwaas oo iska soo duubaya muuqaalo sheegayana inay wiilkan doonayaan. Hase yeeshee waxay dad fara badan isweydiiyaan, Liicaato halkee ayuu mustaqbalkiisa ku dambeyn doonaa? Ugu dambeyn Liicaato ayaa waxa uu shaaciyay inuu guursaday gabar lagu magacaabo Sumayo, taas oo ku nool wadanka Ingiriiska. Waa kan muuqaalka hambalyada kaas uu ku sheegayo arrintaas. Anu hurdaas wixii waxa soo kacaan oo dhahay baby good morning kacaya khashano waxay ano dhiro. Waxaan ka bilaabayaa dhammaan YouTuberada Soomaaliyeed ee aniga farxadeeda ila qayb qaatay waliba ii soo hambaliyay. Maasha Allah waan ku faraxsanahay. Waxa ii soo hambaliyeen YouTuber aad u fara badan, majaajilistayaal, maamooyin, walaalo, saaxiibo, fanaaniin iyo faniskayga aad ii jecel. Dadka qaar aniga ii farxad galiyo waxa kamid ah ku farxeen aniga meherkay waliba qaar kood ay la ilmeeyeen farxad darteed. Waxa uu ahaa muuqaalkani mid dareen gooniya xambaarsan dad fara badan oo Soomaali ah, kuwaas oo social media caan ka ah ayaa Liicaato ugu hambaliyay arooskiisa. Kadib waxaa bilowday in Liicaato iyo gabadhan ay soo bandhigaan jacaylkooda, iyagoona markaasi isdhaafsanaya muuqaalo iyaga oo kala jooga wadanka Ingiriiska iyo sidoo kale Malaysia. Dad fara badan ayaa ku xirnaa muuqaaladooda, waxaana inta badan laga dheehan jiray jacayl aad u fara badan. Hase yeeshee daawadayaal, arrinta mar qura dad fara badan oo Soomaaliyeed ka yaabida ayaa ahayd markii ay baraha bulshada qabsatay in Liicaato iyo Sumayo ay kala tageen. Dad fara badan ayaa arrintaani la yaabay ilaa iyo haddana jahawareer ka taagan. Hase yeeshee daawade, su'aashaad isweydiinaysa ayaa waxa ay tahay, maxay tahay sababta ugu weyn oo ay dadka Soomaaliyeed u cuskanayaan arrintan baahinteeda? Waxaan rabaa inaan kula wadaago xaqiiqada ku aadan arrintan. Waxaa jira wiil Soomaaliyeed oo TikTok caan ka ah kaas oo muuqaalo la soo sameeyay Sumayo. Wiilkan waxaa lagu magacaabaa DJ Amit. Waxa uuna dhowr jeer muuqaalo ay ku dheehan yihiin dareen jacayl la soo jilay Sumaya. Dad fara badan ayaa commentiga u qori jiray, maxay tahay arrintani? Sumayo soo jacayl lama aysan lahayn Liicaato. Hase yeeshee daawade, arrintu halkaas kuma sii kooban, waxaana jira muuqaal kale oo waxaas oo idil ka duwan. Hase yeeshee inta aanan kaas kula wadaagin, marka hore waxaad ila daawataan muuqaalada habjiliinka u muuqday oo ay markii hore iskala soo muuqdeen wiilkan lagu magacaabo DJ Amit iyo sidoo kale Sumayo. waxay muuqaaladani u muuqdeen kuwa ku dhisan habjiliin. Dad fara badan ayaana commentiga waxay ku soo qori jireen, waxaani waa jiliinkii TikTok-ga ee lamaanayaasha la isku dirin. Hase yeeshee arrinka halkaas waa uu iskala tagay, waxaana guud ahaan baraha bulshada qabsaday
in labadan lamaane ay kala tageen waxaana uu ahaa muuqaalka sababta weyn dhaliyay ee arrintaasi hawada ku sii shareeriyay muuqaal uu soo dhigay wiilkani bartiisa TikTok-ga. muuqaalkan ayaa waxa uu muujinayay wax ka duwan habjilin kaas oo u muuqday nolol dhab ah ama nolol real ah, waxaana muuqaalkan laga dheehan karay eraya ay ka mid tahay my baby, sidoo kale sawirro hal qaab loo wada galay kuwaas oo muujinaya dareen jacayl. hase yeeshee daawadayaal, inta aan faalladeeda idinla wadaagin, bal marka hore muuqaalkaas ila daawada. muuqaalkan walow aan live loo duubin, hase yeeshee qaab edit ah ay sawirradani ku soo baxeen. dad fara badan ayaa waxa ay barta commentiga ku qoreen, maxay tahay sababtan, miyuusan Lee Caate gabadhan qabin, maxay tahay ujeedada laga leeyahay muuqaalkan. ilaa ay hadda ma jiro mid ka mid ah lamaanayaashan oo arrinkaasi ka soo jawaabay. Lee Caate waxa ay dadku commentiga ugu qorayeen, xaaskaagii ma furtay, maxaa dhacay, balse kama uusan jawaabin. haddaba arrintan laba nooc ayay u muuqataa. mid waxa ay tahay in lamaanihani ay doonayaan inay baraha bulshada ee Soomaalida shitaan, kadib markii ay dadku hadalhayn badan arrintan ka dhaliyaanna ay soo sameeyaan muuqaal si ay u helaan viewers badan ama number badan oo daawadayaal ah. arrintan ma ahan mid cusub, maxaa yeelay horey waxaa loo arkay in baraha bulshada la geliyay waxaa isku dhacay Lee Caate iyo Muniir. hase yeeshee maalmo kadib waxa ay soo sameeyeen muuqaal kaas oo ay ku sheegayeen in aysan isku dhicin oo ay weli saaxiibo yihiin. muuqaalkaas waxaa daawatay tiro badan oo dadweyne ah, waxaana ahaa muuqaal saameyn gooniya leh. haddaba arrintani ma waxay u muuqataa in muuqaal la soo wada dartiis saameyn gooniya loogu yeelayo, mise waxaa jira arrin kaleete oo waxaan dhacayaa waa dhab? dadku waxa ay leeyihiin Lee Caate waxa uu ka maseeray wiilkan, sidaa darteedna gabadhan waa u furay. hase yeeshee dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, idinku dalqada uma haydaan dadka isqaba, ka warsuga intay afkooda ka dhahayeen, balse ma ahan inaad u hadashaan. inkastoo ay mararka qaar xaaladdu hadasho oo waxa taagan oo loo jeeday xaaladdu hadlayso, hase yeeshee marnaba ma ahan inaad u dhahdaan furiinka idinku halkii aad isku soo dhaweey lahaydeen. sidoo kale waxaan rabaa muuqaalkan inaan kula dardaarmo wiilkan Soomaaliyeed ee lagu magacaabo DJ Amiid. waxaana ku leeyahay, dadkan haddii ay yihiin lamaane isqabo waa laga fiican yahay inaad soo dhex gasho. haddii adiga dartaa uu dhib uga dhex dhici karo, fadlan waxaan ku leeyahay ka fogow. haddiise Lee Caate uusan waxba u arkin arrinta aad samaynayso, waad wadan kartaa. haddiise uu ka xumaaday walaalka, ma ahan in gabadha xaaskiisa aad ka sii ag dhawaato, waana laga qurux badan yahay bataa damba. haddaba daawadayaal, xogahan iyo wixii kusoo kordha halkan ayaad idinkula wadaagi doonaa. sidoo kale fikirkiina iyo waxaad arrintan ka qabtaan barta commentiga ayaad igula wadaagi kartaan. muuqaalkan leeg saara si uu u gaaro bulsho weyn fara badan oo Soomaaliyeed una ogaadaan xaqiiqada rasmiga ah ee arrintan, inay run tahay iyo inay been tahay. haddaba daawadayaal, halka aad muuqaalkan kala socotiin waa janaalka Haldoor Media. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyay ee janaalkeena, fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kugu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. mahadsanid.